dhalinyarada gobolka anigoo ku xusaaya 7 degmo waxaa jirta mudan wasiir adigana ka warayso xarun dhalinyarada loo diyaariyey oo gobolka banaadir ku hoosiyey xaruntaas waxay leedahay dirbi oo ka kooban 100 mitir iskuweer dhalinyaradii gobolka banaadir degmooyinkii ayagoo kaashanayaan marka inay wax ku darsadaan xaruntaas ayay waxay sameeyeen in aan sameyn isxilqaan inaan dirbigii wareega aan ku dhisno oo gaaraya 100 mitir iskuweer degmo walba waxay keenaysay bulkeeti iyo shabeello gobolkii banaadir oo maantii laga saaciday asagana shaqaalihii iyo wixii markaas intii kaloo soo hartay dhalinyaradana bulkeetigii xaruntaas galaya wuxuu ahay 9,000 ayaa lagu qiimeeyey 4,000 kamida waxaa keentay dhalinyarada Soomaaliyeed marka taas waxaan ugu jeedaa mudan wasiir in dhalinyarada maanta ay dareemeen inay wax dhistaan marka haddii ay wax dhistaan waxna ma duminayaan marka waan u mahadcelinayaa dhalinyarada gobolka banaadir gaar ahaan degmooyinka waxaan rabaa ugu dambeyn kusoo gabagabeeyo